walaalahay raalli hada kale waan sugeynta dadku soo galeen soo dhawaad kii hore iga go'ay kule dagaaladu way iska badan ma ogsoonta live-ka markaan soo galo dagaalo badan kuwa badan oo doqmaana way soo wacayaan waan iska blogareeyay raalli hada walaas lama rabo inaa wax ogaatiin kolley kaamiradu way nii furan tahay soo dhawaada kaamiradu nii furan yahay barnaamijka la socdo dhan kaamiradu furan tahay soo dhawaada walaalaha sii share gareeya soo dhawaada السلام عليكم. السلام عليكم. برنامج المؤلف صوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج المؤلف صوتي. ما دمغشا. الو. ما دمغشا. نبديد كما مقلي ابو ولي. عدك ما مغيسد. اما خاكم مقلي. اوكي برنامج كمان لا سعودي صاحب برنامج اما كا سو غلبه محو كا ليشك وا dib u dhageyso saaxib kanadiid baa ku qoran baan jeclahay dib u dhageyso marka yaan ku soo qaban doonaa shoodhaagii adoo iga raaleeya dhageyso waa ku soo qaban doonaa aad iyo aad waad mahadsan tahay shoodhaagii sorry about that walaalayaal soo dhawaada kaamiradu waa noo furan tahay Facebook hore live-ka waa la iga gooyay dhowr goor baan qortay I don't know dagaaladu si fiican bay ugu socdaan waxba kama dhigno sii share gareeya soo dhawaada kaamiradu waa nii furan tahay السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميل مدوبان فديا تيغرا لغيا waxba kama dhigno barnaamijka ma la socoti meel madooban fadhiyaa oo iskara laqon waxba kama dhigno barnaamijka ma la socoti ya may nabadiido imika haddaan soo galay imikada ma soo galay haddaad imika soo gashay iga raalaw dib u dhageyso intii la socotay igu jirta waan soo qabani adigana waxaan kaa soo qabani gadaalayaasho dhay marxaba raallimaka ifreer marxaba waad mahadsan walaalahay raalli hada live-kii hore waa layga gooyey live-kii hore aan ka hadlayay tani waa live labaadaan imika soo galay marka ma dhammayn bay ahayd oromadu si agsidoona usoo bixinay si caadi ee dowladda Jabuuti ogeyd wasiirka anteeriyarka ogaa waxaan oo dhan wax agsidan iskaga soo baxay maaha hal booliis ma joogin qof haba yaraatay joogina ma jiro waan soo qabanaya deeqa gabi waan soo qabanaya fikradiina dhiibta deeqa mahdi baa ka horeeyay ku soo diray bal accept grade markii labaad ku soo diray accept grade ku wana ku soo diray hala raali hado waa liiga gooyay dib baan soo galay ka dagaalka uu iska jira uu ogyahay maxamed cawaale waan ogahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waan ku salaamaynaada ma fiican tahay waan fiican yahay naadir nabadiido kulli programo aad iyo aad u adag oo madaragtay dadka dhiigga ku kicinaya madaragtay wada aniguna wax yar baan kaga darsan tolkay waxa weeyaan horta anigu wax cid kale oo la hadlaya ma jirto wadaniga un baan laba eray oranaya war tolkay waxaan leeyahay dhiigu biyo ma maanta maamulkan Jabuuti waad u jeedin iyo sida ay u socdo waxaana waa example-kii ugu fududaa baa la siiyay ay oromadan ku banaan baxay ee loo ogolaan waa example-kii ugu fududaa ee lagu necab yahay oo la nitusay weeyaan marka ninka wadaniga ama dibadda ku soo bartay ama dalka ku soo bartay ee maanta dhalinyarta ee reer Jabuuti ee dhaladkii ma wuxuu u baranayaa inuu dadka isaguna sida dawladdu dadka u dulmaysa inuu isaguna future-ka u dulmu doonaya bise waxa weeyaan inuu dadka isbedel ku sameeyo doonaya waa taas in la isweydiyo maanta anagu talkay markaan u yeedhaynay reer city markaan talkay u yeedhaynay aan kala hayn waa dhukiili maanta sabab uu socday bal u hadla in yar u hadla oo damqada markaan lahayn waa la wada aamuso waa la wada gariida qof ka hadla ma jir balse laakiin in ajnabi oo dhuk kala hayn maanta in la kala garan waayo wadaniga iyo kii soo galay in la kala garan waayo dhibteeda leedahay waa wax nasiib darraa weeya maanta wadanigu xaqiisa oo maanta wadan kale aan aqoonsanayn jeegaanta lagu bixinay markuu ka hadli waayo war
goormu wadanigu wadani yahay watani isku sheegay muhiim oo taas weey maanta shalaytooda dhalintii biki ee soo qalin jabisay basas intay kareysteen bay magaalada bikisa ugu wareegeen waxay yidhaahdeen anagu waxaanu soo waxbaranay dalkayga inaan dadkayga difaacnay bay yidhaahdeen awa dhiigga caynkaa oo kale ninkii wadaniga reer jabuuti awa dhiigga caynkaa xagar weyn mar labaad baan ku difaaca resity anema mar labaad maxaa kugu yimaadaan maanta ku dhiciya aan ku difaaca haddana waa waxa araan weyn maanta xoog maayna waa tan waxa la doonaya iyo qalin baa la doonaya waxaan nii sheegayaa war in maanta waa nasiib darra in maanta lacag haddaan haystaan jaga inaan iibsan doono lacagta Ethiopia haddaan wato waan ku iibsan karay see ku dhacday ninka shofeerka inuu halkaa gariilo joogsado oo lacagta sarrifto islaan hooyaa ubad ku korinaysa qadaadiic yar ka helays lacagtii inaad dalka dhexdeeda lagu isticmaalo waa xaaraan weeyaan dadkaana anaa niga garanaya si fiican way bayna si fiican baan isku garanaa anagii oromo si fiican anagaa niga garanaa waxay yihiin waxaan odhan lahaa war dhiig biyo maahina waa dhiig ee waxaani leeyahay maanta ayaad waqti haysatiina maamulkan waxa waxuu nii soo wada ma jirto inanka yare ilmaha yare reer Jabuuti markuu noo soo xagaabaxo uu naga qurux badnaan jiray yaraantii maantana kaadidaa ku wada dhegaysa wallahi waa nasiib darro weyn taasina maanta dhacdo waa nasiib darro war waxaa nii sheegaya tolkayo arrinkaasi dhexgalo maadaama Jabuuti city waa sax waxa sheegaysa ugu raacsanahay ana ciisa Jabuuti baan waan kugu raacsanahay in Jabuuti aad naga rideen cadowga haday noqoto iyo dhinaca Soomaaliya ilmaha hooyadii iyo aabihii baa barbaariya oo hooyada naaska istaa aabuhuna wuxuu baraa socodka noloshu bara city waa aabaheen dhinacan kalena waa hooyadeen saylac loo hayeystay waan kugu raacsanahay agree with you bal ciisahan meesha jooga ee doqmaha ee Jabuutiyan baan nahay cusbayaanku maskaxda ka haysta doofaarka way dhaafeen dadkan doofaarka ugu liita Soomaa doofaarka way dhaafeen ciisa Jabuuti ana ka ku marxaati maxaad dhalinyarta inta dhiigale maxaad oranaysaa oo ku soo Soomaali jecel nabadiida horta ma jirto Soomaali way jeceshaa wada wanama aron ka Soomaali anagu Soomaali ma doono ciisa ka Soomaali jecel ma jirto marka Soomaali horta iska reeb arinkeyga ciisa la yiraahdaa waxa weeyaan magacana anagu waxa weeyaan anagu maanta arrinkaan u hadlayno waxa weeyaan haddaan anagu reer city nahay calankan magacayga maadaama uu ku yimaado darteed waayo ku anfareedna kuma ku abaalkiina kuma yimid laakiin waa wadani baan idhahnaa magarad laakiin magacayga maadaama uu ku yimaado waxaan intaa oo dhan la gubanayna u dhididina anagu marka waxa weeyaan war mar labaad bay maanta u baahan tahay dalkii Jabuuti in la xoreeyo dadkii dhintay ee u soo halgamay siliga lagu waday walaalahayow dharaartii ma dhimanay maanta ay dhinteen dharaartii rajay qabeenay maanta ay dhinteen waa marka lagu galiyeeyo wixii ay u soo dhideen naftooda waayeen maanta lagu galiyeeyo waxa weeyaan war fadhiga ka kaca barbaar adag samaysta anaguna waa nigarab joognaa walaalahayow dee naftooda kolmay baxda safka dhagaxa iyo safka maxay ahayd budadka aabayaashiin iyo hooyaashiin way soo galeen war dee inagu maxaa tihiin orodaya iska rida iska rida baktiga وأنا ملقي دوفاري لو أسكر دي كريسين ولا الله يو رجبوتي حدد وان دالي وأنا إيمان دون هذا الخوان لايف كي بيور الدعوة كان هو بارتي 2 مرة اللي بها لايف سوقرو واللي برتبيا واللي دبا قولوا لكم فيسبوك إنه ينوش يندور قر وحبا كمان دقنو كمان السياحين إن هالجمكا كمان الجيفسان إنه وان وضعنا أي ينسوق بتاع أوكي دقيقة شكل بدن بابا الله marka walaalahayo timidna waan xasuusinaya dadkeenii ku noolaa city waad kadib assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبديد وانكم السلام ولا لا ka qaaday barnaamijka ma la socotay deeqa سفي عن والله سعودي سفي عن ay waxaad haysataa maadaama magaca qurux badan yahay 4 minute ku nuxnux run ahaantii nabadiidu horta maadaama aan ahay gabar Jabuutiya oo ciisa oo dalka u dhalatay waxaan rabaa horta reer Jabuuti malaha wax badan waa la hadlay anaguna halkan baa laga cabaadaya adigoo nabadiida halkaas aad ka qayleysaa waa daashay iyagiina wax ma fahmayaan malaha dhagu wax uma maqlaan baan u maleynaya reer Jabuuti mise dhiig bayna lahayn dhiig bay lahayn
والله ديك بين لهنا horta waxaan u sheegayaa dhiiga nagu jiraay wuxuu noogu jiraa jirkeenu inuu shaqeeyo maskaxdeenu inuu shaqeyso imika ina Cumar iyo ina Boori ina Cumar ma la iska qaban kari waayo waa maya laakiin waxa la leeyahay qof u kaco oo iska celiya dadkii u kacay dhalinyartii maanta City waa la arkay City say u kacday ma sha Allah wallahi anaguna way banu sameyn laanahay reejibta hadaan nahay oo dalkii ku noolnahay ma baqanayna waa maya naftu qalbay baxdaa wixii la doonaha la sameeyo laakiin marka qofka action la tuso isaga dawlad tuska u qaadanaya moogtahay wayba maanta dalkeena anagoo ka maqan aanu horta waaba ka maqanahay laakiin intii joogtay maanta inay ka dhiirido ay tiraahdo ma dhici karto inay orama dalkeena maanta ay banaanbax ku sameyso ee muadinki dalka u dhashay ee dhiigiisa lahaana loo maxaan ku raay bixi kari waayaan wallahi waa ceeb gabdhihi anagu hadaan nahay waxaas ma qaadi karno ina Cumar iyo ina Boori naagtiisu naga bateen runaantii ina dardeeqan ku saxo ina Booramaay waa Ilyas Muuse Dawaale waxa weeyaan isagoo ra'iisul wasaaraha maaliyadda Djibouti wuxuu yiri waxaan ku faraxsanahay dalka Ethiopia inaan u shaqeeyo ayaan ku faraxsanahay marka ma wasiir reer Djibouti ba amba waa wasiir Ethiopiana sida ninka aad u aragtaa Cabdiraxmaan Boori doo kale ها والله waxaan u arkayaa hadaba haday kaas tahay isaga haday tahay runaantii horta wasiir buu isku sheegaya lacagna wadankii buu ka qaadanaya laakiin waxa fiican meesha wax ka qaadanayo inuu u go'o haduu Djiboutian qof uu dab u yahayna uu dalkiisa si daacad ah nabad ku jirto qurux badan uu ilaahayna ku ogyahay inuu ugu adeego haday kalena haduu Itoobiya u shaqeeyo oramadana hadhax taga dad ku ah u shaqeeyo dalka ka baxo sabab dalkan anaga u dhalanay haduuna isagu u dhalan uu diirnaxaynin uu damqanaynin uu dhig ugu jirin uu leeyahay waxaas la sameeynaa samee ama madaxa laga hayo la dirayo taasi ma shaqeynaysa dad damiir la ku nool wadanka oo u dhashay oo u damqanaya marka mana ogolaanayna dalkeegina la caburiyo dadkeegina la caburiyo sababtoo ah dalkan anaga u dhimanay maanta maxaan ku dhahdaaye anaga ka soo baxnay guumaysi waan ka soo baxnay maanta ma guumaysi waan ku jireena meena Cumar bana guumaysan Ilyas Dawaale guumaysan taas ma dhacaysa de xornimadii waan qaadanay tan waan ka gudbaynaa laakiin intii dhiig leh ha kacdo runaanti wallahi marka run la isku sheego hala kaco oo hala banaan baxo oo hala tuso dawladda odagan iska meesha iska fadhiya timiina ku cireysta ee indho caad ku soo galay marka hala kaco wallahi hala kaco nabadida aad baan uga xumay anu runaanti dalkayga markaan saa u maqlo wallahi anigu maanta raadisu dhandhoor hablaatan wallahi kuna waxaan sameeyno way wada baqanayaan nafsadii waa baqanayaan waxa lagu leeyahay park marka tagnaa la celinaya war dalka miyaana u dhalan waa la baqanaya baqasho ma jirto naftu qalbay baxdaa dadkii u soo dhintay awowgii u soo dhintay adeerkii u soo dhintay laakiin taasi dhici mayso hadaan horta gabadh Ciise ahay dalkaygana Oromiya xamashi ka talin maayana dhowtoole yanaag xuno safan loo wadanka soo gashay shalay toole uma talinayso 2020 isku soo diyaarinaysana waxay ka macaashtaa la eegaya mameedkeega dhulka laga qaadi doonaa mise Djibouti bay xukuman doontaa qadraxay waa la arkaa meesha ku dambayso laakiin dadkan waxa u sheegaya reer Djibouti dhiig waxa shaqeeyo iyo qurba joogtu soo cabaadi waa la daalay sidii loo hadlay runba fiican ficilina la tusaa hada loo baahan yahay ficilkan ma tusnaa mise lama tuso hadana dad damiir la ay ku nooleen wadankii hala ilaahada damiir ma lihina wuxuu sameeyay Cumar ban ku ayaan ku jireynaa laakiin baraar dambe iyo guumaysi dambe halaga baxaan leeyahay anigu waxaasna ma jirto aad adiga mudan walaal wallahi adiga mudan in kasto af Soomaaliga aan si fiican kana hadana intii taalkeega waan hadlay ma sha Allah thank you intii taalkaaga walaal thank you ma sha Allah jazakallahu walaalkay ilaahay adigana miisaanka xasanaadka kuugu kordhiyo dadaalkana halka ka hay hana naga daalin anaga kugu xidhan anaga ku daawanayna anaga kula jirno marka hadaago istiibaan leeyahay inta Cumar u shaqaysa Cumar inta u shaqaysa agta hoosteedan leeyahay walaalo intaasan kuugu soo koobay baro walaalahayga kala soo qabo iyagana aad baan salaam hayo السلام عليكم نسوين برنامجكم maxaad ka dhiibanaysaa barnaamijka maantiyo horta waa makacsanahay oo kabriil la qabsi hay kowde hay magaaladan yar ee Djibouti iyo Ismaaciil Cumar iyo dawladdiisan iyo way waxay nagu noqotay kaniinkii madax ya ayay nagu noqotay ay hadal badan in la joojiyo weeyaan waa Ismaaciil Cumar
haramuus meel la yidhaha u degan yahay wasiiraduna meelahay degan yihiin eero iyo guryaha qaqabow ay degan yihiin nin walba oo kulul oo reer Jabuuti oon lacag haysan uu garanaya meelahay jaadka ka qaataanna waa la garanaya mujlisyada xitaa fariistaan waa la garanaya anu reer Jabuuti waxaa leeyahay ninka xanuunku haya reer Jabuuti ay gaajadu hayso ma wuxuu garan waayay inuu gacantiisa ula tago isagoo mirqaansan oo qayilaayo oo jaad u fadhiyo in uu madaxa litrad ka saar mu kari waayo oo kala go'a welina oo kala go'o mirqaansan oo weliba boornoo daawanayo wasiiradoo dhan boornoogay daawadaan ma bant I love that ku soco wuxuu kari waayeen ma waxay kari waayeen inay majlisyada ku doontaan ma waxay kari waayeen xafiisyadeena foolfool xun ay ku jiraan inay ku doontaan war ninkii maanta shaqada kaa eriyey ee directeerka ahaa amba sheefka ahaa amba wasiirka ahaa ayaa afinitres jaadka ka qaadanayo isagoo qofna la socon kolkaa reer Jabuuti ma reer Jabuuti baa waalan mise dowladda waalan su-aasha la isweydiinayo waa taas waxaan iyaana lagu mashquulin sidana dhacday waana dhibay oromaa soo baxday fitish baa soo baxay war guriga madaxweynaha waxaa ka dhex shaqeeya oromo dhegta fura waryaadaga reer Jabuuti oo dhegta fura wasiirka cuntada waxaa u kordhiyo waa oromo caargooga guriga eego oo odagoo jaad ku maqan reerkiisii caruurtiisa ilaaliyo waa caargoog waa nin ka yimid Ethiopia maadbanti صح marka waxaa loo baahan yahay in orama maanta soo baxday wax cusub ma ay saax wadanka dhan bay ka shaqeeyaan oo wasiirada u shaqeeyaan oo booliiska u shaqeeyaan oo jandarka u shaqeeyaan oo meel walba joogaan horta wax cusub yeelinayo maanta niga aan waxa soo baxay orama way iskaga joogeen laakiin anu reer Jabuuti waxaan leeyahay war ilaahay qofku ka dhigay damiir leh oo dhiig leh oo aqli leh oo maaragtay wax nici karo waxna jeclaan karo ilaahay ka dhigay ninkan agtaada ku qayilay jawaanka jaadka ku xunay eed adiguna ka gaajoon tahay ee balbala ku fadhiday muraaxadiina laga jaray ay kanaacadu ku cunayso war intay kanaaca ku cuni lahayd waxa dhaanta adigoo maaragtay ka kiilooga jaadka istuu dhigtaado madaxa ka jara dhaam oo adiguna rawaxday sideed u aragtaa Soomaali weyn sideed u aragtaa Ilyas Muuse Dawaale oo wasiirka maaliyadda oo tug dhalaya oo dalka Djibouti ka dhistay Sitee Dawaale wuxuu ka yiri journal France 24 yaan ka filaa uu sheegay waxaan ku faraxsanahay inaan dalka Ethiopia aan si fiican ugu shaqeeyo je suis fier de servir l'Ethiopie buri cishadu baxayna oo ra'iisul wasaaraha Oromada dhagtu wuxuu ugu sheegay wuxuu kala Ismaaciil Margeel cad buu noqday khalaas sidaan u maleeyo cad buu noqday meesha aan igu bedel sida Cabdi Ile iga dhig Ilyas Muuse Dawaale sideed u aragtaa qotiga jisiyada Ciisaasta war Ilyas Muuse Dawaale horta waa nin Ciisa oo maaragtay Ethiopiana waa nin Ciiso Ethiopia ku dhashay dadka Ciisana waxba uma qabto kuwa Djibouti joogana waxba uma qabto tolkii waxba u qabanba tolkii waxba qabto war shirkadaha leeyihiin reer Dawaale adiis shirkadaha uga shaqeeyo iyo boorka Djibouti baabuurtooda waxaa ka shaqeeyo oo ilaaliyo daba socdo safiirka u fadhiya adiis bal ani si fiican dhageysta safiirka adiis u fadhiyo Djibouti uma qabto dadka reer Djibouti dhalinyarta xitaa wax barata iyo Ciise halka joogo waxba uma qabto ka saaxiibayn wuxuu ilaaliyaa saaxiibayna waxa dhalay odagii Indiris Faarax Abana dhalay ka meesha joogay nagana saaxiibayihiin oo wuxuu u shaqeeyaa reer Dawaale u shaqeeyaa dawladu ma shaqeeyo wuxuu u shaqeeyaa reer Dawaale iyo guriga madaxweynaha uu leeyahay iyo islaantiisu iyo guriga uu ku leeyahay wasiirka afariga guriga ku leeyahay adliis buu ilaaliyaa kuwaasuu ranjiga iyo dharka ka bedelaa iyo beeraha u beeraa marka saaxiib meeshan waxaa haysta tuugo Djibouti waxaa noqotay tuugo directeerku wuxuu xadaa meesha uu joogo chef de service wuxuu xadaa meesha uu ka tago chefku wuxuu xadaa kuwa shaqaalihiisa okay yes Zainab madaxweynuhu islaantiisana way
علمي يسوق قبل علمي يسوق قبل علمي يسوق قبل باي وجهك زينب مدري يسوق قبل اي زينب يرسل اي dalkan ininkaale waana ka daadoonti foolxumadii waa laga dhaxaya marka waxaa odhan lahaa sameeya dhalinyaro soo baxda oo mudaharaado oo xaqooda dhacsato waa in la sameeyaa si degdeg ah shalay toole waxaa la furayay free zone baa la furayay soo ma ahayn iisoo gabagabay cilmiga dib baan kuusoo qabanaya gabadhaan usii dayn dib baan kuusoo qaban sax dib baanaa kusoo qaban waa soo gabagabinaya waxaa leeyahay war madaxweyne ilaa iyo booliiska ka ugu hooseeya waa tuugiina la iska qabo asalaamu calaykum zaynab تعاونوا وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة waan ku salaamayaa inaan kaagana shuwaay zaynab baaqsaq baan ku leeyahay هاي ميرسي بوكو waxaan doonayaa maadaama dad canfarana inay dhegeysanayaan inaad khudbad ku dhigtid af canfari inta dambana Soomaaliya aad ku soo gabagabtid waad aragtay oromadii soo baxday lama rabo inuu yaro tujuro ka soo baxo canfariya inuu yaro ubax ka soo baxo canfari justement waxaan ka doonayaaba inaan ka hadlo cishadii dhaweyd meeshan kalaf ee biyaha ee cafartu ay joogsatay waa ka lagu furay bahalkan ecolomangerka waa ka lagu furay islaamo maxay ahayd aajeeya maxay ahayd ay ku suuxeen waad aragtay markaana waa kan arxin farama ahkaana dumisa kuna ambixinsa kuna kala falte kesolotu irtigira fakin aan agbeda cawlaha xogsigin donc arximi cafaraka abubtihtan cafaraka arximi shicbitu wahayan wacdina cafartu way tahtu waynah iyan wacdina solo keeni ka xintana giraari keeni ka faktana rusas wa keeni ka faktana aka cundaneyti tonna porsa kutufanna hayensa kuna giraari keeni faktin cundaneyta xasbit haytin donc wo urusolot suge uruktu kabda tama ka xintin may table wo solot sugteeni kodrirateni tama ka xintin maralitun haya bon wo an votsa kuna kaduna an dileyti an sidi xamo iyemi sabataha inkih ka kaciten haya ahkana passport agdlisansite Somaliland ikeniki sur le champ arwa ka dalkeni yixin en plus wudir an video yene hana ne ay sabin an premièrement deuxièmement jibutil tama dago sinan dago huy an wayso kudri shicbi Soomaaliya maragtaama fanayan hay ahka cundaneyti itak bugulyan ahka na diplomat le mari buraadilyan may table tama esriteni wayso kudri miya taarige iyo lito araxal iyan an toyso kudrina sinni faren maray sinni mari dossier yake wayte wayso kudri masakina arax mali oui bonjour an toyso kudrina waxkana waraaqita mohkenik biyan norul waraaqit men waraaqid xaagid anu inni huble tacabi lena uble kahna ya cifra marakak tacabna ninni lino yoltig ziceh may tablin noor sinan waraaqid mali agdil saasite mali wo waraaqid fareeniki jugement exact kenikiyan wo jugement sanatak sanatken hayta to wacdina tahinkii maxaaha abana makbugul wudirneeka hayay buleeni baguneka xarisana ma sini gyanfuro sini gyanfuro abobtili yaabam araxal ya maraka isin tudhici waytaan antuhinaka shicbi tu farah yaabitan fara wacdina labahay shicbi yaabe makalina omo yaabitona dhex caalankeeni yabula dhex isin tudhici waytaan tasawiri tantoonu nuble baan tuhinna sini ogolle alaashita sini disti oo tuqomita tuhinna me ama saakina shicbi tu waynaha tasoltan fadha maxaa soole kaltaana deuxièmement waraaqati mirin baadho sinig fooxa gara waraaqad si mari maxaa waa deux haya maxaa hayto wacdina caadu publicitene ka kahaytaana wudirneetay buleeni may tablen ahiminkihi maxak neeta bremi ana cafarak sini kadhexin faraldiyo sini xaki esrita so lashta inkisi solona inkisi may sololon inkisi may rushelon noru sidi dakhali tajora an obokh inki marshit haysa inki sola sini xaker sirita say fini adolad gaba kalte sini dhictu ay tamali déjà étranger inki baado lehtiya lemi may table Somaliland iyo Oromay noqotay Djibouti waka walibana wayna tusayaan agdil sansaday Somaliland ka sameeyaan bayna tusayaan annaka dadkeegi noor iyo sid waa bilaa waraaqado haday waraaqado weydiistaan waa sanado inay sugaan waa inay daalaan
ما دركت شقة هدي ويديستان هدي سر جوكسدان وحا لغو قرح وحا رصاصية وحا لغو فريا كرومانجاك لغو فريا مركاد إذا waxaad u sheegtaa canfarta inaan adigu ku soo waanu sheegay canfarta waanu sheegay madaxdoodana waanu sheegay waxaan kale dadkan aad gaajada ku disheen aad ku silcisaan waxba ba ha u tirina laakiin durwaagooga markay weydiisanayaan ay sare kacayaan ha u diidina waa kan ba oromadii aad u yeesheene ya pourquoi pas citoyenga ha dadkii gaajo ku waa kan nabad joora ولمن أبغ بيور أبغ بيور بانكولي هاي جاجو يورق الآن بيور شغل الآن جبي ويزدول فرديان أبغ هاي وحبقف وح أتريا مجرتو هاي جاجا كودشي دتكي بادي يود أبغ يمال كستبق جاجا كودشي هاي وراقدات شاقة ساي جاجا كودشي شقة ما ويديسان كرا شقة هدي ويديسان هدي مظاهرات أنا وحا رصاص با أو شاكانسا رصاص با لغو هرجينيا الكلمة واكن دراد وكان كلف مركي جوكسدين لغو فراي كلمانجان وكان إمسا عرقو با جوكسدو مسيدي دونان ها عرقو وسكا شقيسانا يا ها شقيستو ها ويالان وحبابا ما ودن كي ودن ايا كاستي وحبابا ما لكن كي كان سيتوايانغا او هورين لها ودنكا يا maxay wax ugu diidayaan waxbaha wax siistiiba iska daa ya mudaharaadkii bay u diidayaan mudaharaadkay joogsanayaan nacam caalanka daawan doona shicibkan Djibouti inay wax laayihiin way sare waa kan de way kaceen inta bay u diidayaan waa kan darad u yeelan kuwan kale oo Djiboutianga waxay ugu diidayaan nacam de waana la arki ma daragtay ina dadka mudaharaadana waa dad ay leeyihiin wax kas waxba kama maqno wax kasta oo dhereg bay ku jiraano ya oo sidan baan u haynaayo waxay foo فريزون بالا فري فو ودا عارقو laga wad buuxin doona qodob waa kan xabashigaanu kooraanka ku deynayay adiguna in iida bahalkan bilaakirada ay kooraankii sidaas leeg dhabarkii baa dadkii ka jibiyo waxaan ka soo wada baxsanay baa kooraan iyo waxan ay dadkii waxba umamno mushaarkii ay qaadanayaan waxba ugu taalo waa kooraan waa bi waa shaqeedii waxba waxay ciyaalkii wax ugu dhigtaan waxba kama jiraan ee waxba ugu si daranba waraaqadahan ay waxan ay bixinayaan ay waliba biblisteega naga bixina waxay dadka iyagu waxay wax ay ka laayiin waxba ka heleen ay waliba naaso banaandhigayaanba maxay noogu soo banaandhigayaan maxay noo tusayaan waxay noo tusayaan inaan dad ahayn bay arkayaan inaan waxba ka kacayn bay arkayaan waxay arkeen inay dadka reer Djibouti ay damir iyo dhiig iyo waxba ay lahayn may tus lahayn waxaan oo dhan dabadii waxay u tusayaan way arkeen way hubsadeen inay dadkan dad waxba ay ahayn uu dhiig ku socon uu biyo inuu ku socdo way arkeen ciise iyo cafarba marka bay soo dhigayaan dad ciisana ahayn waa kan ciise sidan cafartii dhig way isku dirayaan dad lacag la soo siiyay way arkeen ayakii baa isku jeesanaya ma arkayaan dadkan kale ee wadanka ka faa'iideysanaya oo daragtay ayakii baa la isku dirayaa dadkii kala ka faa'iideysanaya marka waxaan ni oran laano cafar iyo ciisow hurdada ka kaco gacanta isqabsado oo wadankan ininka la niga baabacaya oo nigu waaba la iibsadayba maxaa nigu waaba la iibsadayba deja wayba dhacdayba waxba niima hadin ya haddeed waxaan ni haray ka baxade wadanka waxba kuma leedihiin ayaa ni haray waaba la yiraahaba ay ciise wayna soo caayaan waxay cafartu maxay u kicilaayeen cafartu hadday ka rasaas baa ka hor imanaysa ay hadday ka nasafa mal aleen hadday cafarta wada kacdana safa mal ali inta ay aamusayihiin ay maxaa la kicday kacana rasaas baa ka hor imanaysa nabadid hadalka waan kugu dheeray waa kaas waa maasantay isina waa maasanta ciise canfartu kuwan canfare banaan baxayana ciise loo diraayo rasaaseeyo kuwa ciisana canfar iyo cusbayaan baa loo marka anaku waa inaan dalka wayna gacan waa bas qabsadaan ba imika sidii hore ma aha alxamdulillah nabadid imika sidii hore ma aha imika siyaasiyadu way fahmeen ciise cafar laakiin in yar baa u hadhay ha kacaan rasaasta maxay heeda magibi bayni wada rasaasanayaan baa leeyahay anu gebi u wada tashada waa kan oromada gibi mar quraatay habeen quraatay ku tashadaan ku wada kaceen sidaas oo kale magaalo dhan bay rasaasanayaan ma waxa soo shicibay rasaasanayaan mar quraata tashada mar quraata wada kaca wala saba leeyahay hanni wada rusheeyaan min wada rusheeyaan haddana la wada mariyada caalanka ni arki sidaana waa kaas walaalahayo raalli hada waqti ma haysto saacadii way gaadhay shaqa ku laamaya aad baa u mahadsan tahay Zainab canfartuna waa u banaanaya barnaamijku waan arkaya soo qorqoraya barnaamijka ku soo azuumadeysa Djibouti markaan ka hadlay ciise canfar baan ku soo azuumadeeya marka Soomaaliya dhulka ka hadlayno welcome back team tani waa ciise canfar un bay qusaysaa innikana nima qusayso dalkana ciise canfar baale wax innaga noqosay walaalahay ma bas iska dhageysto innagu waxa ku qasbantiin in aanay dhageysatiin
ina barnaamijka participation kuma qasbantihiin barnaamijkan ciise iyo canfar baa iskale tanna Ismaaciil Cumar Geelan yar baa hore waan ku baabiin doonaa walaalahayo odayaasha waxaan baaq u dirayaa odayaasha ciise iyo canfarta baaq waxaan u dirayaa adeerayaal iyo hooyooyinka ooyayaal dalka waa inaan badbaadino nin waliba oo ciise xisbigu ku xidhan yahay qabiil ahaan maanta qabiil ma taagano maanta mamaasan ma taagno maanta Yuunus Muuse ma taagano maanta Bidda Muuse Akhtimura Muuse Sacad Muuse Furlabe walaaldoon Horroone Urweyne Wardiiq ma taagano midnimay maanta taagan tahay ciisanimay taagan tahay canfartu saas le xasooba bado tameela wareeba ma taagna canfarnimay taagan tahay dalka maanta waa inaan ku badbaadino qaxma wada jir iyo wax ku gooyaan ciise canfaaq inaan wixina ku goosano Ismaaciil Cumar Geelle annaku naga dhashay ciisu ka dhashay anaa isku qabiila anaga isku qabiila oo isku Cabdilla Gadiida bafur Rabiicigal Banqal Cabdilla Gadiid baan annaga isku qabiila annaku nala dhashay waa doofaar dhalay weeyaan ciisanimadiisaba aan su'aalaynaa Ismaaciil Cumar Geelle siyaad barra Allah naxariistay markuu haysanay meesha tolkii korbe cirka u fiirinay iska daa mareexaanay dhul bahanta kor u kaadin jiray daarood bay isku yihiin kani cad waxa laga dhigay tolkii ciise inuu baabiyo meel kasta uu joogo kuwa badan oo munaafiqiin oo ciisaan arkaya maanta le ciise waa wada ciise you tell true munaafiqnimada iska daaya karaamad qofku markuu munaafiq yahay karaamad male nacrad baa ku taal wallahi munaafiq qofku markuu yahay karaamad male hanoo munaafiqiinina haday daacad niga tahay shargare videogeyga hadaa daacad tahay amba hadaa daacad tahay عديك عبد الله بن سلول باته منافق يا منافقات باته كون الله الله ويسقرنا أنك أنا اسكو قبيلة منافقين دلاجي مركا ولا لا هذا الكائن كل ديران سيدا ما الله هاي قعمة ودجير بوحكو جويان ومباهن قبيل يحس بقبيل عيسى عن فروحنا كوجو أصلا بلنا وحنا نجا قادنا وفي سرياش وسين نوش يجينا سرسرة ولا لا يوريجي وتدنير تسيبه عيسى عن فرتا باسيف مو أصلا نبحه قعمة إسقبصدا وحنا نقول بالله مرة جواحة بالله نوجا قادن أوفيسرada ka sarsan maalinta in isku jajabinayaan aan dalkana aan lagu reegi doono annaga waqtigan kaartisiis joognay haddaan ogeyn dalku inuu sidan u dhacayo dadaalkan bilownay xisbigayagii kaartisiis iyo kaartikaad aars dadaalkan bilownay haddii aan waqtiga ogeyn aan aqligan lahaa Djibouti oo dhan baan gaarsiin lahayn saan iskaga turno doofaarkan iyo doofaaradan u qabo Djibouti oo dhan baan gaarsiin lahayn marka walaalahayo hadal badan dambaa dhaamta reer Djibouti ciisi canfar soo banaan baxa waxaana nagu ballama aniga iyo aqooyan Maxamed Cawaale iyo inta fikradaha ayaga aaminsan ee jilxada ku wasalaya inaan Djibouti iman doono waxaana noo ballama waqtigan inaan isku iman doono wixii mucaarad oo dhan Brussels Belgium taariikhdana cashada dambe Maxamed Cawaale soo qabto iyo iftin iyo dad badan ayaa soo sheegi doona taariikhda walaalahayo maalinta Belgium iskugu imanno Belgium markaan iskugu imanno danaha iyaga ka tashano walaalahayo waa anigu nabadiida waxaan leeyahay cadaaladiid waa nabadiid salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ilaahu dalkayga barakee ilaahu dadkaygana qulubtooda nadiif ka dhigciisii cafarta ku like